shaqan aada waxaan igu dhaal waxaan u shaqeyn doonaa xasan toob anigana waxaan ku dhahay aad baan ku dhahay kadib waxaan maqlayaa lilaaf iyo fartuuntaas naftirkaan ku ogaay waxay ku dhahday bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada janalka Som Sky Media waxaa halkan maanta marti inoogu ah janalka gabadha la yiraahdo Fartuun Balbalaarka saaxiibkeedii hore ama ninkeedii hore asigoo markaas dacwo ka ah xasan toob iyo nin la yiraahdo lilaaf maxaa leedahay bal soo dhawow kusoo dhawow Som Sky Media masha Allah waa dhawahay Som Sky Media waa ku dhawahay waxaan dacwo ka ah Fartuun Balbalaar iyo xasan toob baanti xakaaya dacwo okay Fartuun Balbalaarka waa sida nala sheegay ama sida noo sheegtay waa xaaskaagii hore maxaa dhacay xaaskaagii qof hadii xaaskaaga guriga kula joogto sababta kaga soo tagtay maxay tahay bal noo sheeg bal ma kala tagteen ma qabtaa ma adaa shaqo u soo dirsaday bal noo sheeg bal nafansi qoftaas ana shaqo uma soo dirsan bas laakiin qof waxay ahayd oo dhib badan abaanta ulana marka qoftaas waa qof oo waxaan ku tilmaamaan garanayno ilaa dirtan abaanta ulana marka qoftaas waa ilaa dirtan waxaan dacwo ka dirtan xasan toob lilaaf markii aan خلاص aan dood ka qabaa okay xasan toob waxa waa adiga xaaskaaga inaa cishta eedmaho xasan toob macnaha ayda u tagtay ileen asigu ma imaan sida nolol sheegay aan ku ogaanay xogta marka bal adiga ma heenna soo ma heenna ayda ka adkeed si fiican marka hore waxay ugu sheegay barnaamij maxay leedahay maxaa ka leedahay marka sarwaal loo geliyaa maqlay baraha bulshada ku jirto ay sarwaalkaas maxaa ka leedahay sarwaalkaas waa maqlay anigana waa arkay indhiga ku arkay qoftaas qof xaaskeyga ee oo fiican wanaagaan ku ogaa balse laakiin aad deertaan xasan toob meeshuu su'aalku ugu geli iyo meesha kale iimaadan sheegin balse laakiin qoftaas saa darteeda qof iga furno marnaba nolosheeda kuma soo laabanayso waayo gabar sharaf lahay xagteeda ka eeg balse laakiin aad sharafteeda iyo sumcadda ee san lahayd dhan way ka dhuntay waayo qofku markuu qiimo leeyahay oo sharaf uu leeyahay aa loola socon karaa soomaan waan gartay qofkaas oo kale had deertaan marnaba man u baahan inta nolosheeda ka dhiman lama soconayo waayo qofku markuu qiimo iyo qadrin isku yeelo asagan la qiimeeyaa sidaas darteed marka Fartuun Balbalaar qof ay dhaan waxay magaceeda Fartuun Balbalaar loo dhahay meesha Soomaan waayo waxay iska gaday bulshadeenta Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga anigana qoftaas ima soo gasho habeen ima soo gasho maalin ima soo gasho waa Fartuun Balbalaarkeed iyo abshaxankeeda ba israacayaan okay marka soo laguma fiicna gabadha markii hore waa waalida ku soo darsaday in waalidkeedii la xiriirtay barnaamij wixii information la socodsiisid soo ma ahayn soo laguma fiicna inaad baraha bulshada dhexdeeda ku furto waayo way ku fiicnad baa naas macna oo saacaas waalidkeed aan la xiriiro aan wacdo balse laakiin qofku markuu asiga wanaagsan yahay waalidkiisa wacan kartaa qof aan wanaagsaneen waalidkiisa ku wacanay waayo waalidkiisa xateer waxaan u maleeyay saacaas inay fal ay sukuleeyeen balse laakiin taasi ma sheegi karo marka qoftaas waxaan dhahayaa sidaas darteed baraha bulshada aan u dalaaqayaa maano sidaas darteedna haddeertan iga dalaaqan tahay ay okay gabadha jecleed Fartuun lahay halkaan ku weysay marka ninka oo la leeyahay xasan toob maxaa leedahay marka xasan toob qayaano labay oo farta ka xiran ninka naagteeda balooga waay waayo qof dhan oo shaqaalo ahayd ninka damcay iga baloogay oo suwaal u geliyay baraha bulshada soo dhigay ninkaas aan daqiiqad cadar iska dhaafay nolol isku raadinayna in kastoo iga dhuntay bas laakiin qofkaas waxaan rabaa si life inaan u arko abaanta meena xasan toob magaciis dhan hay soo qaadi waayo nin dhan mas'uul ah u maleynay balse laakiin mas'uul ma aha ana hadirtaan ka mas'uulsan oo ugu sabraayo hadirtaan waa u fasax Fartuun Balbalaar abshaxankeeda iyo diinteeda oo ma aqaan saas okay wad u jeedaan waa Fartuun Balbalaarka saaxiibkeedii hore oo dhiig aad u garay kadib markuu maqlay in xasan toob oo saaxiibtiisii ka baloogay oo ninka lilaaf leeyahay xiriir oo ka dhaxeeyo lilaaf maxaa leedahay lilaaf waa lilaaf waxaa leeyahay xasan toob ayaa barnaamijkaas soo xiriir waayo xasan toob iyada kuma day karo balse laakiin waxa uu soo dhameeyay lilaaf wiilkeedaan uu soo dhameeyay lilaaf in xiriir yeesheen sidaa darteedana baraha bulshadan ka arkay inay macnaha waqti walba isku dhigdhigaan iskula baashaalaan waayo qof xaasla ah inay lilaaf ku dhigto xasan toobna barnaamijka soo dhameeyo the fucking boy waayo aniga waxaas ma qaadan karo waayo qoftaas qof aan jeclahay jacaylkayga bed nolosheeda bed laakiin nolosheeda iyo farxadeeda iyada baabisay qoftaasna inabal ima soo gash lilaafki iyo xasan toobki iyo Fartuun Balbalaarka diinta uu baxay sidaas saacaas la joogo
okay waa fasaxday وافصح انت وافصح xasan toobna waxaa leedahay meeshaa joogto iska ilaali حسن طبعا عن ليه الله ماشي جوجتنا اسكا الى لسان جعله waayo liilaf asigana kama maqno ninka xariirka labada way waayo jaceelkaaga wax walba u sameeyna Soomaan waan gartay marka qoftaas waxaan leeyahay idii liilaf iyo xasan toob iyo aniga nolosheeda ma arkin waa faanta umeen haddana waxaan jeclahay darteeda maadaama iga kor qaadin ama iga baloogan xaaskayga aan jeclaa waxaan jeclahay darteeda inay ugu dhaafaan hadii kala maano waxyaalo kale ka imaanay meesha the fucking guy okay waad ujeedaan fartuun balbalaarka saaxiibkeedii hore inuu aad u xanaaqsan yahay marka bulshada daawanaysa videogan waxaa ka codsanaynaa inay share gareeyaan subscribe channelka saaraan wixii kusoo kordho si markaas ay la socdaan okay marka hadda fariinta ugu dambeysay oo reebis maxaa leedahay fartuun balbalaarka inaan murugeysanahay waa ujeedaa oo aad iyo aad macnaa jaceelkeeda u yahay oo hadeertan aan murugeysanahay waa ujeedaa qoftaasna macnaa jaceelkeyga iyo waxay ii qabtay dhan dhaawac weyn ay ii geysatay marka qoftaas darteed waxaan jeclahay inay marnaba nambarkayga ay soo wacnay ay soo kool gareen ay soo wacnay aan jeclahay haddii nambarkayga soo wacdo ama soo kool gareyso rabbi rasul meesha joogtaan qofku siinaya qoftaas bal ka waran haddaa iskiinkeeno oo arrintiina la xaliyo sidiinii hore isku soo noqotaan marnaba lagama yaa waayo qofka hadduu sharaf leeyahay waa kusoo laaban karaa balse laakiin qof hadda baraha bulshada dhex tagay oo meel walba lagu sheekeysanayo la dhahayo fartuun balbalaar si ula xeesbaasheeda arag si u wareejinaysa arag qaabkay u dhisantaha arag la dhahayo aniga jirkeeda waay waayo marnaba lagama yaabo inaan saacaas oo jirkeeda aniga aan lahaa inuu qof kale bini aadan ay siiso ama saacaas oo ku tunto aniga diyaar uma yihi waayo inaan marnaba sharafteeda ilaaliya mar walba horumarkeeda u taaganahay qof macnaa laakiin sharaftaada adiga dilaayo oo marnaba oo si kale ilaalinayo hadduu asig sharafta oo kaa qaaday adigana mar waxaa wanaagsan in adigana sharafta aa ka qaado oo banaanka aa ka marto saardarteed waxaa leeyahay fartuun balbalaar iyo xasan toob iyo liilafo nolosheeda dad ku tuntay oo ku ciyaaray baraha bulshada geelay iyaga waa marka waxaan ku dhihi lahaa sidaas darteed inay iska ammaangeliyaan aan jeclahay okay barnaamijkeenii aad ka daawanaysaan som sky media halkan ayuu inoogu egyahay barnaamijyadeenii kale waa inoo habeenka jimcaha soo socota insha allah dhegeystayaasha daawanaysa videogan subscribe asaaraan ana share gareeyaan si ay u arkaan xasan toob lii life iyo fartuun balbalaarka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu